wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ayaa xarumo caafimaad oo ku yaala deegaanka Baqbaq iyo waliba tuulada Budumbuto xariga ka jaray maanta. deegaanadaasi waxaa hoos yimaadeen degmada Dongoroyo. socdaalka wasiirka waxaa ku heliyay madax ka tirsan hay'adda World Vision iyo waliba gudoomiyaha degmada Dongoroyo iyo saraakiil caafimaad oo wasaaradda caafimaadka Puntland kamida. tuulada Baqbaq oo aan ku hormarnay waxay u jirtaa magaalada Garowe caasimadda Puntland 215 kilomitir waxaana ay kamid tahay tuulooyinka faca weyn ee gobolka Nugaal. horey uma lahayn xarun caafimaad hase yeeshee wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland muddada uu joogay ayuu ka hirgeliyay xaruntan caafimaad tuulada Baqbaq waxaana ay arrintan ay kamid ahayd ballanqaad uu horey u sameeyay 7 bil ka hor ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland xarumahan maanta oo xariga ka jaray uu soo dhagax dhigay. inta aan sii soconay deegaanka ku xeeran tuulada Baqbaq waxay ahayd deegaan roobabkii sanadka ay seejiyeen oo abaari ka muuqato. markii deegaanadaasi aan ka soo rugmanay oo aan soo gaarnay deegaanka lagu magacaabo Budumbuto waxa uu ahaa deegaankaasi deegaan rooban oo roobabkii sanadka ay ka sii muuqdaan walow dhulku uu qalalay. intii ugu aasnayd inta uu noo qaftay kadib noo qabatay badan soo marin madaxweynaha ay tahay wasiirada ay tahay tahay sababtoo waa ninkii ugu horeeyay oo Budumbuto intuu yimid u doonay rug caafimaad. maanta naarto rug caafimaad bay leedahay waa maanta la daafuray shaqaalihii baa loo saaray keenay ninka ilaaha baa mahad laakiin waxaan balyeynaa waana ducayna cimrigiisa la raacto intuu noo qabtayna Puntland loo kama qaban haddaan nahay deegaanka baahida anagana waa naga tibaasan intuu soo maqlay buu na soo aadayo haya ninkaasi anaga xagga reer Bunto wuxuu ku leeyahay buug caafimaad siifigiisa aanu diyaarinay hadduu dhinto caruurtiisa waa ku xiriirin doona marka ninkaas Puntland oo dhan waa nooga weyn waa wasiirka kaliya oo intuu xilka hayay muddo aan badnayn 6 jeer ama 7 jeer nooyay waa wasiirka kaliya oo intuu Budumbuto yimi wax muuqda ka qabtay naga halka waxaan reer Budumbuto waxaan ku qabnay dayac muhiim u tahay xagga caafimaadka halka waxaan ku qaadi jiray islaanta bulshada markay isku dhibaatoodo intii aan la gaarsiin bay naftu deeji waa la soo celin jiray qubuuraha baa masjid baa wax waari jiray carruurtu sidaas oo kale ahaan jiray ilaahay mahadiis waxaan noo yimi wasiirka caafimaadka intuu noogu yimi waanu ku soo dhigano waa fariisanay wuxuu noo ballan qaaday inuu ku soo amsiad uu noo ballan qaaday amsiadka waa noo dhisan maantay amsiadka oo noo dhisan xarigii buu ka furay daawadii waa noo taal dhaqaatiirta waa noo fadhidaa waanu ka baxnay dayacii aanu ku qabnay waxaan leenahay waa mahadsantihiin annagu waana idin soo dhawaynaynaa waana u baahnayn MCH-ka iyo dadka caafimaadka aad bay nooga maqnayd xubin nooga maqan bay ahayd waana dadaalay waxaan ku talagalay inaanu dhisano annagoo bilaabanay baa inoo timi hay'addu 2 qol bay noo dhistay 3daana annaga ku darsanay waxaanu kaloo danaynaynaa in ka badan in naloo ku daro caafimaadka naloo keeno dayrar naloo ku dhiso naloo cagdhigo iyo wasiirka oo la kawshaday oo uu furo guriga caafimaadka baanu ku soo dhaweynay beesha Baqbaq hadaan nahay meeshan baabacda waxa kale oo ka siyaa kumbulitiga Baqbaq guriga wadaanin oo ka kooma 3 qol oo ay isku tashadeen inay dhistaan waxna ka qabsadaanin una muuqdaanin inay dalkooda wax ka qabsan karaan deegaankoodana wax ku siyaadin karaan tafadal waa kan ee ku soo dhawaada madaxa caafimaadka walfiish gudoonshiyaha degmada bulshada intaba way arkaan oo hortaageen hadda inta ka bacdi waxaanu leenahay waa aragtaan qoladina caafimaadka wasiirka caafimaadka iyo walfiish caafimaadka madaxda caafimaadka inay siyaadsaaniin waxa la dhaw wax qabadka caafimaadka guryaha iyo daawada iyo gaadiidkii loogu adeegi lahaa iyo tayeynta ummadda ka shaqaynaysa ayaan uga baahanaa intaas waxaa noo dheer oo aan ku hadlaynaa gurigu hadduusan
caafimaadka aan loo wada xursul duubin ama aan wax laga qaban ama kumbuluutigu uusan wax ka qabsan ma hagaago. waxaa layna ka rabaa innagana inaynu gacanteennana ku adeegno kuna qabsanno iyagana ayna ku siyaadiyaan waxa la dha wax dheefka. baahida annaga saaka loo furay oo meesha ay wasiirka caafimaadka ee Puntland qolada walfiish oo ah madaxda caafimaadka guddoonshaha mukhtaar cabdiraxmaan xaaji gumbuleedkiga baqbaq intaasu maantay laba goor aan ku celnaa inay fureen guriga caafimaadka ee baqbaq. waan dhegaysateen kan gumbuleedkigu uu wado oo hadda 3 qol iyo deegaanka ka koobanna inay wada arkaanin noona qalabayaan daawo hadday tahay qalabka adeegga hadday tahay gaadiidkii ka shaqayn lahaa dhallinyaradii ka shaqayn lahayd. wasaaradda caafimaadka oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka baan ugu mahadcelinaynaa. waxa weeyaan meesha la yidhaahdo haddaanu nahay reer budunbuto waxaanu caafimaad la'aan hertiboos la'aan ahayn muddo 4 sano ka badan. waxaanu u ballan qaaday wasiirro badan oo ka horreeyey. waxaanu muddo badan u cabannay madax badan oo sarsare oo wasaarad caafimaad ahayd oo hore oo Puntland soo madhay. nasiib wanaag wasiirka kani waa wasiirkii ugu khayrka badnaa wasiirradii caafimaad oo na soo maray haddaanu nahay reer Puntland. waa wasiirka keliya oo ballanqaadkiisii iyo waxqabadkiisii markii uu baahidayadii arkay bal haddaday si degdeg ah isla markiiba dhagax dhigii ballanqaadkii ismihii daahfurkii intaa 7 bilood uma dhaxayn. waa wasiirka keliya oo reer budunbuto maanta 99% wasiirradii caafimaad oo Puntland soo maray oo ugu ahmiyad badan yihiin. xariga ka jiro wasiirka caafimaadku hay'adda walfiishin waxqabadka ee noo qabatay waa uga mahad celinaynaa waana ku mahadsan yihiin. waxay noo qabteen guriga idiin muuqanaya oo ka kooban 3 qol waana ku ammaanaynaa hay'adda aad baan uga mahad celinaynaa. wax badan buu noo qabtay wixii kale ay noo qabanayaan oo noogu dari karaanna waa ka sugaynaa inay noo qabtaan iyadana. taa intaasaan kaga gudbayaa. waxaa noo weheliyaa guriga kan hadda socda oo aad aragtaan oo isaguna ka kooban 3 qol oo waaweyn oo dhiskiisu uu yahay dhagaxa bulukeeti ma aha oo shaqadiisu aad arkaysaan qaabka ay u socoto. waxaa wata mashruucaas tuulada gibinta ah oo aad arkaysaan oo la yiraahdo baqbaq. habar ay leedahay dhaqaale ay leedahay kuma wadato laakiin waxay ku wadataa dadaal ay dadaalayso oo maaragtaa ay dadaalayso. ma aha meel ganacsi fiican leh. waxay ahayd meel ku tiirsan xoolaha nool sida geela iyo ariga iyo wixii la mida. waqti adag oo abaara baa dhacay oo xoolihii noolaa waa iska yaraadeen. hadda markaan mar buu ahaa kharashka aanu ku wadno macnihii odayaal ahaan ayaanu u soo amaahanay ilaa lacag gaaraysa $5,000 oo hadda ku socdaa waanu soo amaahanay. waxaanu jecelahay inaanaan joojin ilaa aanu ka dhammaystirno haddii ilaahay idmo. waana idiin sheegaynaa waanuna idiin sheegnay qaabka uu ku socdo gurigaasi. waxyaabaha badan oo ka dhimanna idinkuna waa dareemaysaan. waxaa ka dhiman wax la yidhaahdo dayr oo lagu soo wareejiyo guryahaas. waxaa ka dhiman macnihii waxyaabo kale oo maaragtaa badan oo uu u baahan yahay sida qalabayntii iyo sidii uu u shaqayn lahaa intuba waa ay ka dhiman yihiin. waxaanu ka doonaynaa inay noo qabtaan oo aad noogu dadaalaan oo wax nagala qabtaan wasaaradda caafimaadka iyo qoladii awalba noo dhistay 3 qol oo caafimaadka oo walfiishin ahayd iyo in naloo ka gudbiyo hay'adaha kale oo caalamiga ah oo iyaguna deeq bixiyayaasha iyo wixii la mid ah. inaanu idiin sheegay annagoo sasa caafimaad aanu ka codsannay oo sidii loogeed noogu halgamay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa gaar ahaan hay'adda World Vision
oo ilaa aamanu nala shaqaynaysay guriga quruxda badanna noo dhisay iyadana wuu mahad celinayna gudoomiyaha degmada oo nagala shaqeeyay aad baan ugu mahad celinaynaa isagana waxaan leenahay hawlka madaale wali waa hogadii cabdirasaaq wuxuu yiri ku darsada 3 qol waa ballan qaadaynaa waa ku darsanaynaa wax awood iyada xoolaha iyaga nafta iyada iyo maalka iyaga aan ku sanayna salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ma sha Allah raxiim waxaan ka mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka sida wanaagsan ay wax noogu qabatay khaasatan wasiirka caafimaadka cuuki ayaanu aad iyo aad wax uga mahad celinaynaa waxay wasaaradda caafimaadku wax ka qabatay abaarihii sanadkii dhawaa ka dhacay deegaanada Puntland geed kasta iyo goob kastaba waxay la taagnayd daawo oo lagu daaweynayo dadka tabaalaysan oo abaaraysan aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa waxaanu leenahay dawladda Puntland agaasimayaasha wasiirada ha lagu soo doorto deegaan walba wax qabadkooda iyo sida ay ahmiyadda u kala leeyihiin ha lagu soo doortaanu leenahay MCA goobta caafimaad ee tuulada Baqbaq oo noqonaysa goobta caafimaad ee saddexaad ee degmada Dangorayo tuuladan waa tuulo waxay ku taal meel istiraatiiji ah waxa la asaasay oo guriga horeysay laga dhigay 1983 ka horna waxay ahaan jiray ceel xooluhu ka cabaan oo istiraatiiji ah oo dadku isugu yimaado muddadaas 30 sano ku dhow ay dhisnayd ma ay lahayn goob caafimaad xagga laamigu wuxuu u jiraa 112 kilomitir dhinacan xeebta ah waxa ka xiga biyo banaan oo 100 kilomitir isagu gaaraya dhinaca koonfurta waxa ka xiga iyaduna dhul aad ilaa 100 kilomitir caafimaad ugu shaqeysa ku jirta in laga dhiso xarun caafimaad waxaan aad ugu mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa hay'adaheeda la shaqeeya partnerka la ah inay maanta halkan laga hirgeliyo health centerkii ugu horreeyay sida aad u jeedaanin xaruntaan halkan qaybta soo jeeda waa isku tashi bulshada ah maadaama uu halku dhiga dawladda Puntland ha isku tashato qaybtan community-ga dhisay wasaaraddana waxaan ka codsanaynaa inay isku xidho inta ka dhiman dhamaystirto annaguna degme ahaan markasta si joogto ah ayaanu taakulaynteeda iyo ma garanaysaa gacanta ugu haynaa waxaan rabaa inaan xuso xilligii abaarta oo la soo maray oo cudurrada badan dhulka dhaceen ilaa haddana ay jiraan caafimaadka ka shaqeeya deegaanka wuxuu ahaa caafimaad wasaaradda caafimaadku ay abaabushay oo ah tiimamka guurguura oo runtii hay'adan halka hadda fadhida joogta oo Wolfish ay waday iyo wasaaradda caafimaadku isla wadeen shaqaaluhuna ahaa shaqaalaha wasaaradda caafimaadka hay'aduna ay sabood gareynaysay runtii ma dhicin wax dhibaato ah oo la xalin waayo tiimamkaas ayaa aad iyo aad gurmad lama ilaawaan ah ka sameeyay deegaankan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa mudane wasiir waxaan ka ku sheegaynaa deegaankan inuu deegaanka ay ujeedo tahay tuulada waxa ku nool 540 qoys oo degan dadka ku hareeraysan oo reer miyiga ahina hadee waa dadka guurguuraha marba in bay tiradoodu gaadhaan waana meeshaas caafimaadka ka fog bay u baahan weeye hadda sida aad markii u horeysay uga hirgelisay xarunta caafimaad inaad xarumo badan deegaanka ka hirgeliso ayaanu ka rajaynaynaa deegaankan waa deegaan tuulooyinkiisu kala fog yihiin ma aha deegaamada la iska dego oo meel kasta tuulo laga asaaso tuulooyinkeedu waxay isu jiraan 50 ilaa 70 inta u dhaxaysa sidaad arkayseen hadda ilaa Dangorayo ilaa halkan wax tuulaa kuma aynu arag marka tixgelin gaar ah in la siiyo ayuu mudan yahay populationka ku noolna waa tuulooyin aad u fara badan yahay maadaama la diiday dhinaca deegaanka iyadoo la ilaalinayo inaan tuulooyinka la isu dhaweyn
aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa waqtiga wasiirku uu hogaaminayo oo safarka dheer 250 kilomitir safar ku dhow soo galay haddana raba inay safar labaad sii galaan oo health center kaleeto oo ku yaal tuulada Budumbuto la sii furo aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka waxqabadka joogtada ah oo ay deegaamada ka hayso aan imaado intaas oo sano jirtay oo markii ugu horeysay rug caafimaad yeelanaysa rugta caafimaadku wasaaradda caafimaadku waxay u taagan tahay waxa weeye inuu caafimaadku gaaro dadku meesha ay joogaan inuu ku gaaro intii suurtagala hay'adaha naga caawiya caafimaadka sida World Vision oo kale qorshahayaguna waxa weeye qorshaha la nimaano inay fuliyaan qorshahan la nimaano niraano halka waxa laga fuliyo halka waxa laga fuliyo inay fuliyaan way qorshooda aad bayna ugu mahadsan yihiin hawsha baaxad oo fiican oo special hay'adan World Vision ay gobolka Nugaal ka qabtay guri waa la dhisi karaa oo waa u jeedaan oo maanta midna waa dhisay oo waa dhamaado waanu furi midna isku tashiga dadka meesha degan oo aad u mahadsan ayuu dartood u socdaayo waa ka hadda marka uu dhamaan doona waxaa loo baahan yahay marka guri haddii la dhiso sidii haddaaya u lahaa madaxda World Vision ka socday haddaan lagu shaqayn oo aan guri ummaddu leedahay loo tixgelin ka duwanaan miyo guryahaas kale oo halkaa la degan yahay waxaa la rabaa guddoomiyaha degmada iyo community-ga isku duuban in ay shaqaynta meeshaan isha ku hayaan waxay u baahan tahay mar walba maaha in la yiraahdo gacanta ha loo taago hay'ad hebla iyo wasaaradda iyo intaas oo 100 kilomitir jirta waxa laga yaabaa wax sahal oo $50 oo $100 u dhigma inay u baahan tahay shaqo inay u taagan tahay shaqada marka waxa la rabaa inaysan u istaagin wax yar oo community-gu ay awoodo sida community-gu ay gurigaas u dhistay waxa la rabaa guddi caafimaad in la dhiso oo community-ga ka tirsan guddiga caafimaad wuxuu ka tarjumayaa ummadda baahideeda ayaga guddoomiyaha degmada soo gudbinaya guddoomiyaha degmaduna isaga noo soo gudbinaya markaas wixii aad qaban weydaan laakiin marka hore waxaan rabnaa inaad tiraahdaan waxaanaan qabsanay waxaana waa tabar baan u weynay inaad tirahdaan baan rabnaa haddii rabbeedmo waxaan rabaa inaan bogaadiyo inaad u noqoteen mithaal tuulooyinka kale oo weli sugaya xarun inay dhistaan inaad mithaal u noqotaan oo sawirka ay arkaan in idinku aad isku tashateen aad baan idinku mahadcelinayaa ilaahay mahadisa idinkaas sawirka waanu isticmaali doonaa meeshaan tagnaba waanu oran doonaa wataa sida ay isugu tashatay baqbaq haddii rabbeedmo maanta meel kale waan furi doonaa haddii rabbeedmo isla degmada Dongoraya ka tirsan waxaanu la rajaynaynaa mustaqbalka ama annagu waan sii joognaa ama cid kale wasiirra kale ha yimaadeen in waxyaalo badan oo noo qorshaysan oo tuulooyin kale in iyaguna hirgalaan haddii rabbeedmo mustaqbalka baanu rajaynaynaa waxaan rabnaa hooyada halkaa ku foolanaysa in la baro inay timaado intaan foosha la gaarin rugta caafimaadka si loo ogaado ilmaha xaaladiisa hooyada xaaladeeda hooya umur raacday baa la oranaya hadhow haddii kale dhimashadu waa meesheeda laakiin wax sahal oo dhiig bax yara oo laga hortagi karay in hooyo u dhiig baxdo waa wax maaragtay inagoo dhan inuu ku ah wixii qabanayo dhan biyo culdhaasha ka dhigaya dadka caafimaadka halkan jooga waxaa la rabaa hooyooyinka in lala xiriirsiiyo loo sheego talooyinka ku habboon intay uurka leedahay qaybta 3 bilood hore 3 bilood 3 bilood dambe insha Allah wishaan idinku hayn doona xaruntaasna waa ka shaqaynsiin doonaa midda hadda cusub soo socota oo idinku aad dhisteen mar hadday labadoodu wada shaqeeyaanna waxa weeye shaqo badan baa meeshaan ka dhalanaysa waxaan rabnaa mushkiladda waayahan dhacday waxa weeye qof shaqaalaha baa la keenayaa qofkii markii bil lacagteed la waayo wuu iska tegaya waxaa la rabaa
ardada meesha wax ku baratay iyo hooyooyinka in la tababaro iyaga si aysan uga tegin magaaladooda dadka halka u dhashay in tababarka la siiyo ardayda meesha ku dhigatay in tababar loo soo diro markay tababartaan ay soo noqdaan. This is my second time coming to this place. I first came to see when the work. magacayga Tobias Olo baa la yiraahdaa waa mahadsantihiin. ma shaqeynay maxaa kan madow ka shaqeynay Yeah, this is my second time coming here. The first time I came when the construction was going on. markaan waxay tahay waa markii labaad aan imaado oo aan Bulumbuto imaado ma aha markii ugu horeeyay oo aan Bulumbuto imaado magacaygana waxa la yiraahdaa Tobias Olo. I am happy that through the partnership of World Vision and the Ministry of Health we have been able to put up this facility. waxaan ku faraxsanahay wasaaradda caafimaadka iyo World Vision ba inay maanta maxaan idhahdaa dhisaan meeshan oo maxaan idhahdaa aan hor taaganahay. This is the second facility we are opening today. waa xaruntii caafimaad oo labaad aan maanta furayno. And I'm told since this project began this year we are going to open 5 facilities, 2 here and 3 in Ale. sidaan sheegnay sida mashruucan ku bilaabay waxaan ballan qaadnay inaan dhisno 5 xarun caafimaad tani waa tii labaad saddexna waxaan ka dhisnay Ale ayagana insha Allah waa furaynaa. But last year we were also able to open another 5. laakiin sanadkii la soo dhaafay waxaan furay sidoo kale 5. Now through these facilities we are increasing the number of facilities in communities. ayadoo arrinta loo fiirinayo waxaan insha Allah siyaadin doonaa xarumaha caafimaad ee degmaanka wada gobolka Nugaal. And thereby also reducing the distance that community members travel to the nearest health facilities. sidoo kale waxaan yareyn doonaa adeega baahida loo qabo caafimaadka si dadku ay u helaan meel walba caafimaad ugu helaan. If used well, this facility is very, very good. si maxaan idhaahdaa ay ugu jeedaan maxaan idhaahdaa si meel walba ay u hesho xarun caafimaad oo shaqeynaysa. When I was growing up, a facility like this was able to deal with most of the illnesses in the community. markii anigu aan yaraayo aan soo koriyay meesha xarunta caafimaadkan oo kale waxay qabanaysay wax walba maxaan idhaahdaa dadku ay caafimaad uga baahan yihiin. As a child, I remember being taken to a health facility near my village. waxaan xasuustaa markaan yaraa in maxaan idhaahdaa xaruntan oo kale la ii geyn jiray oo maxaan idhaahdaa iyadoo ku dhow gurigayga inaan tegi jiray. And I found a health practitioner, a health officer. I also found drugs and I was treated and I got well. sidaas oo kale waxa weeye waxaan ugu tegi jiray dhakhtar oo qof meesha fadhiya kaasoo maxaan idhaahdaa adeega caafimaad oo u baahanaya baahidooda naga dambaystin inay daweyn jiray. So if you are going to have drugs and we are going to have health officials in these facilities, then I'm sure that the reasons for you going to Dangorai or Garowe for treatment will reduce. taas ujeedadeedu waxa weeye markii meeshaan dawadii iyo dhakhtarkiiba laga helo sababtii aad u aadi jirtay meelihii kale way yaraan doonta haddii adeegana meesha ka heli doontaan. As I was reading the piece of information that was given to me by our officer here, sidaan akhrinayay warbixinta xafiiskaygu igu siiyey, I noted that the construction of the facilities are within the government strategy. waxaan ogaaday in maxaan idhahdaa dhismuhu uu yahay maxaan idhahdaa istiraatiiji dawladda xaggeeda ah. It is important as an organization that we operate within the government strategy. sharaf bay noo tahay sidoo kale haddaan nahay maxaan idhahdaa organisation ahaan inaan la shaqeyno istiraatiijiga ama ujeedooyinka dawladdu ay ka leedahay xarumaha caafimaadka. And therefore I want to promise the minister waana sidii ay inii ballan qaaday maxaan idhahdaa wasiirku inii ballan qaaday that as long as World Vision is in Puntland, World Vision waqtiga maxaan idhahdaa Puntland joogto, we will try our best to operate within the ministry strategy. waxaan ku dadaali doonaa inaanu la shaqeyno oo aanu gaaro maxaan idhahdaa wasaaradda maxaan idhahdaa istiraatiijiga caafimaadka ay ka leedahay inaanu kula shaqeyno. So that everything that we do supports the government efforts. wax kastoo annagu aan samaynayno waxay caawinaysaa dadaalka dawladda iyo wasaaradda caafimaadka. And so when we leave, we'll have contributed to what the government wants to deliver to its people. taasina waxa weeye waa waxa ay wasaaraddu doonayso inay dadkeeda u qabato. As I close, I want to thank the minister waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo wasiirka and the whole Puntland government. iyo dhammaan dawladda Puntland. I was here for 2 years. waxaan halka joogay 2 sano. And I left. I was transferred to Nairobi. sidoo kale waxa lay gudbiyey oo aan maxaan idhahdaa lay wareejiyey Nairobi. The kind of support that I saw and we still experience with the Minister of Health is so great. waxyaabaha khibradda u leeyahay waxa weeyaan caawinta aan ka helinay wasaaraddu inay tahay mid aad u sarreyso oo maxaan idhahdaa xaddigeedu uu aad yahay mid aad u ballaaran. And I tell you, if that support was not there and is not there, then we would not be able to do such a thing like this.
haddaysan wasaaraddu halkaas joogin oo maxaan idhahdaa caawinta aysan helinna wax hagaagi lahaa ma aysan jirin. And I also want to thank the community. sidoo kale waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo bulshada. To put such a facilities, you need land. si loo dhiso arrintan maxaan idhahdaa caafimaadkan waxaa loo baahan yahay in la helo dhul. You also need people to come and work. sidoo kale dadkiina waxaa layna ka rajeynayaa inaad timaadaan oo shaqaysaan. In many countries, yes, government has land. meelo dalalka badan dunidu waxa weeyaan dawladdu dhul bay leedahay. And they have authority over land. iyo sidoo kale chance ay maxaan idhahdaa ku siiyaan dadka maxaan idhahdaa awood ay u leeyihiin dhulka. But if the community does not cooperate, it is impossible to do such a thing. laakiin haddii bulshadu aysan tabarucaadkeeda iyo maxaan idhahdaa waxqabadkeeda aysan la imaan ma macquul ma noqonayso. Because you will start doing it and somebody will come and complain. because waxa weeyaan waxaa dhici doonta in idinku aad bilowdaan laakiin dadku ay qof kale u yimaado soo ka cabanaya. In some places you are even taken to court. meelaha qaarkood maxkamad baa lagula tigsanaya. So I thank you very much. sidoo kale aad baan idinku mahadcelinaya. Now I want to encourage you. waxaan doonayaa inaan ku dhiirigeliyo to use this facility. inaad isticmaashaan xaruntan ama adeegan caafimaadka la sameeyay. Protect it. ka difaacdaan wax kasto khatar oo ku imaan kara. And it will be helpful to you. sidaasna caafimaadka aynu kugu jira caafimaadkaana maxaan idhahdaa ka heli doontaa. Thank you very much. aad baan idin salaamaya wana mahadsantihiin. cabir loo yeelo waxaan rajaynayaa in cabirkii loo yeelay oo ay meeshaan mustaqbalka meel weyn noqoto deerkeedana leedahay sidii la idin sheegay hadaayato waa rug caafimaad meesha tanu inay fido oo qolalkii la jiifsan lahaa iyo shaqo ka badan qabato waxay ku xiran tahay in la ballaariyo annagu waanu idin bilownay waxaa la idinka rabaa qaybtiinna inaad la timaadaan markaad wax la timaadaanna markaa ka bacdi wixii nagaga aadan waanu haddii rabbi gacanta kale oo aan geysanayno markaasay noqonaysa sidaa aan ugu mahadcelinayno reer baqbaq hawsha ay hayeen oo ballaaran runtii inta la dhisay in la-eg bay ka doc dhiseen maanta waana wax lagu naaloodo in loo gudbiyo meelaha kale oo dhan oo wax looga qabanayo inta haddaan ka gudbo guri waa la dhisi karaa guri waa la dhisi karaa laakiin in laga shaqaysiiyo waxay ku xiran tahay isku duubnida meesha degan oo cid walba leh yar iyo weyn iyo dumarba caafimaadkoodu maxaan ku rahdaa u baahan doona meeshaas waxaa loo baahan yahay meel la wada leeyahay inay noqoto oo meel la leeyahay noqoto aan la oran waa meeshii dawladda ama waa meeshii hay'ad u dhistay meesha waxaa loo dhisay waa community-ga guddoomiyaha iyo kooxdiisa maxaan ku rahdaa iyo dadkiisa meesha degan waxaa laga rabaa meesha ka warqabkeeda hadday nadaafad u baahan tahay hadday biyo u baahan tahay haddii xataa daawad u go'do mar baa jira wax $100 ka yar inay u go'do wax daawo ay muhiim ah in la yiraahdo marka sanadaa laga sugayaa $100 hay'ad macquul maaha waxaa loo baahan yahay in la iska xil saaro wixii qaadi karin waa meesheeda laakiin in la iska xil saaro meesha inuu shaqayso guddi caafimaadna loo sameeyo haddaysan guddi caafimaad yeelan lahayn waa la isku halahlaynayaa waa dumaysa waxaan la rabaa dad tuuladaan u dhashay ama deegaankaan u dhashay inay ka shaqo galaan si biri ka maalin haddii bil ama 2 bilood mishaarkoodii la waayo aysan qofku isaga tegin uu yiraahdo gurigayga weey waa ka shaqaynaya meeshaan sida la idin sheegay meelo kale waa furi doonaa gobolka Nugaala ilaa sanadka hore 10 bay gaarayaan inta la furay kuwa la dayactirana 10 kale waa gaarayaan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in caafimaadku baaho oo qolo walba qolada kale ku dhow caafimaadkooda u dhisan yahay haddii rabbi idmo horey ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Cabdinaasir Cismaan Xuuke waxa uu sheegay in deegaanada laamiga ka baxsan la geyn doono adeegyada caafimaadka intaas ayuu kaga dhigay barnaamij gaar ah oo halkan aan idinka soo diyaarinay deegaanadaasi baqbaq iyo waliba Budumbuto waxaana maalmaha soo socda la filayaa in wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland deegaanada kale ee Puntland xarumaha caafimaad ee laga dhisay sidaan oo kale uu furi doono barnaamij kan lamida ayaana idinka soo diyaarin doona